Waxaynu wada ognahay in amiirka mu'miniinta Cumar bin Khadaab uu ahaa qof daryeela muslimiinta oo dhan, uuna ahaa mid waardiyeeya habeenkii si uu ula socdo baahiyahooda. Habeenada ka mid ah isagoo maraya jidadka magaalada Madiina, wuxuu maqlay gabar ku geeraaraysa maanso jacayl ah oo ay u qaadayso nin la yiraahdo waa ninka ugu quruxda badan magaalada Madiina. Nuxurka maansada ay tirinaysana waxay ahayd: ma jirtaa waddo aan u maro ama khamri aan u cabo, mise jirtaa waddo aan u maro Nasr bin Xajaaj. Cumar bin Khadaab Allah ka raali noqday markii uu maqlay geeraarkan ayuu la yaabay, wuxuuna yidhi sidee bay ku dhici kartaa in gabar magaalada rasuulka sallallahu calayhi wasallam degan ay ku hamiso cabidda khamri. Subaxii markii uu waaga baryay, Cumar ayaa baadi goobay Nasr bin Xajaaj, kadibna wuu la kulmay. Wiilkani waa wiilka ugu qurxoon magaalada, wejigiisa wuu dhalaalayaa, wuxuu leeyahay timo aad u qurxan iyo indho waaweyn. Cumar Allah ka raali noqday wuxuu faray in timaha laga xiiro, timaha ayaana laga xiiray, balse sidii hore waa uu kasii qurux batay. Markaasuu Cumar Allah ka raali noqday wuxuu faray in cimaamad uu madaxa ku duubto. Nasr bin Xajaajna sidii la faray ayuu sameeyey, balse quruxdiisii way sii siyaaday. Cumar Allah ka raali noqday wuxuu ka cabsaday in ninkani ay ku fidnoowaan dumarka magaalada, wuxuuna yidhi aniga lama deganaanaya nin ay dumarka magaciisa ku haystaan magaalada Madiina. Wiilkiina wuxuu yidhi amiirkii mu'miniinta maxaan sameeyey oo iiga eryaysaa magaalada Madiina oo aan kusoo barbaaray. Wuxuuna yidhi anigu ma ogolaanayo cid fidno ku ah haweenka muslimiinta inay deganaato magaalada Madiina. Dibna wuu ka diray magaaladii, wuxuuna siiyey saadkiisii iyo wuxuu u baahnaa. Markii ay sheekadani maqashay, gabadhii ku haysaysay magaca Nasri ayay tirisay gabay kale oo macnihiisu ahaa: imaamkii muslimiintow, aniga waxaan ahay gabar dhowrsoon, waxaana hawadeydii ku xiray alla ka cabsi. Sidoo kale aniga iyo qoyskaygaba waxaan wanaag ahayn nagulama sheego. Cumar Allah ka raali noqday dadkii ayuu weydiiyey warka gabadhaas, balse waxaa loo sheegay inay tahay gabar dhowrsoon oo aanan aqoonin xumaanta iyo cabidda khamriga. Markaas ayuu Cumar ooyay una cudur daaray gabadhii. Nasr bin Xajaaj wuu tegay, wuxuuna aaday magaalada Basra, wuxuuna ku degay nin la yiraahdo Mushaajic ibnu Mascuud oo kusimo u ahaa Abu Muusa al-Ashcari. Nasr markii uu muddo ka maqnaa magaalada ayuu soo diray warqad uu ku leeyahay amiirkii muslimiinta oo ii ogolaaw inaan kusoo laabto magaalada Madiina. gabartii magacayga ku haysaysa waxay ahayd gabar dhowrsoon, qurbahan ayaa i dhibay ee cafi. Cumar Allah ka raali noqday wuu ka diiday arrinka. Isagoo jooga magaalada Basra ayaa waxa u yimid Abu Muusa al-Ashcari, markaasuu yidhi sow adiga ma aha ninkii uu soo ceeriyay amiirka mu'miniinta? Wuxuuna sii dhahay ka bax magaalada Basra. Nasr waa uu baxay, wuxuuna tegay dhulka Faris, balse halkaa kumuu nagaanin. Waxaa ka soo eriyey Cusmaan ibnu Abilcaas, wuxuuna yidhi Cumar bin Khadaab iyo Abu Muusa al-Ashcari waxaan shar ahayn kuumaysan soo eriyin. Nasrina wuxuu dhahay haddaad magaalada iga saartaan waxaan u tegayaa gaalada. Kadibna warqad ayuu u soo diray Cumar bin Khadaab. Cumar bin Khadaabna wuxuu yidhi timaha ka xiira, maryahana ka bedela, kuna haya masaajidka. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iiday muuqaalkan. haddii uu ku anfacay like saar, lana wadaag asxaabtaada, fikirkaagana noogu reeb qaybta commentiga.